Sacuudiga miyaa loo dhigayaa daban siyaasadeed ama marmarsiyo lagu weeraro dhulka Sacuudiga ama lagu soo gabagabeeyo taariikhda iyo nabadda uu muddo dheer ku naaloonayay Sacuudi Carabiya? Trump ayaa heshiiska ansixiyay nuclear oo Mareykanka uu la galay Sacuudiga, waxa uu ku xiray in Sacuudiga xiriir diblomaasiyadeed la sameeyaan Israa'iil oo uu ku biiro heshiisyada ama heshiiska loo yaqaan Abraham Accord kadib qoraal uu ku baahiyay waxyar ka hor bartiisa loo yaqaan Truth Social. Waa madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump. Waxa kale oo uu sheegay heshiiskan in uu noqon doono mid ku kooban tamarta oo aan loo ogolaan doonin Sacuudiga in uu yeesho hub nuclear ah. War-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda tamarta ee Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa mar horeba qalinka ay ku duugeen si heshiiskan si degdeg ah loogu sameeyo ama dhamaystir loogu sameeyo gudaha Mareykanka iyo Bariga Dhexe, iyadoo kuwa ka soo horjeeda heshiiskan ay ku sheegeen in aysan jirin qodobo xadidaya Sacuudiga in uu warshadihiisa nuclear-ka ee Mareykanka uu u dhisayo in uu adeegsado kuwa lagu hodminayo uranium-ka oo suurtagal ka dhigi karta bambooyin nuclear ah Sacuudiga in uu helo, balse qodobka Trump ayaa sheegaya hadda in uusan ka doonayn Sacuudiga in ay hodmiyaan ama nuclear ay u adeegsadaan waxyaabaha haatan loo dhisayo ama bambooyinkan ay u adeegsan karaan. Shuruudaha kale ee heshiiskan uu hadda Trump ku xiray ayaa ka dhigaya mid adag, iyadoo dhankiisa Sacuudiga marar badan uu ku xiray xiriir diblomaasiyadeed oo Israa'iil uu la yeelanayo in ay ku xiran tahay marka hore Israa'iil inay noqoto dowlad ka madax bannaan Falastiiniyiintu ama ay yeeshaan Falastiiniyiintu dowlad madax bannaan. Mase hadda waxa iska bedelay dhanka Sacuudiga, mise Sacuudiga ayaa lagu qanciyay heshiis uusan ogeyn waxa ka dhalan doona oo mustaqbalka u horseedi doona dagaal uusan ka baxsan karin. Falanqeeyayaasha caalamka ayaa haatan sheegaya in Sacuudiga uu ku dhacay dabin hordhaca, taas oo ay uga gol leeyihiin sirdoonka Israa'iil ee Mossad inay marka hore ku soo dhoweeyaan nuclear caadi ah oo tamar ah, laakiin marka kale marmarsiyo looga heli doono si Sacuudiga loo weeraro oo looga dhigo meel u eg sida haatan ay tahay Falastiiniyiinta, laakiin mustaqbalka ayaa inoo sheegi doona. Dhinaca kale waxa aad moodaa in Sacuudiga labada dhinac dab looga shidayo. Dhinac waxaa loo tusayaa inay Iiraan iyo xulafadeeda Bariga Dhexe ay yihiin cadowga koowaad ee Sacuudiga, taas oo Trump uu qoraal waxyar ka hor ku baahiyay bartiisa. Waxa uu ku yiri Xuutiyiinta tan iyo sanadkii hore waxa ay u dhaqmayeen si mas'uuliyad leh, haddase waxa ay beegsadeen laba markab oo Sacuudigu leeyahay. Haddii ay mar kale sidaan sameeyaan, mas'uuliyadda waxaa dusha ka saaran ayuu yiri Iiraan oo taageerta, si adag ayaan u duqeyn doonaa. Sidoo kale Xuutiyiinta ayaa la kulmi doona wargeyska Mareykanka ka soo baxa ee The Wall Street Journal ayaa ku warramay si kasta oo Mareykanka iyo Israa'iil ay u adeegsadeen awoodooda ugu xooggan oo ay ku weerareen dowladda Iiraan. Ma doonaysaa inaad noqoto qof Qur'aanka Kariimka si sax u akhriya? Ku soo dhawow markaska barashada Qur'aanka Kariimka ee Darul Qur'an Online. Waxaad ka heli doontaa Qur'aanka Kariimka tajwiid iyo taxfiid, hingaada Qur'aanka bilow ilaa heer sare, ducooyinka muhiimka ah sida Xisnul Muslim. Faa'iidooyinka dugsigan uu la gaarka yahay waxaa ka mid ah macallimiin khibrad u leh casharada online-ka. Meel kastoo aad joogto waad ka baran kartaa jadwal fudud oo ku habboon carruurta iyo dadka waaweyn, labadaba waa la qaadanaya. Maxaa kaa hortaagan maanta bilow safarkaaga Qur'aanka Kariimka? Ha noqon qof dib u dhigta khayrka Alle. Diiwaangeli nambarka shaashada kaaga muuqda ama guji calaamadda WhatsApp-ka hoose.